wasiirka arrimaha islaamka iyo dhaqanka mudane aadan xasan aadan oo munaasabada dhagax dhigga masjidkaasi khudbad ka jeediyay waxa uu dowladda qatar ku amaanay maalgelinta masjidkaasi. Qadar Cabdilaahi ayaa markaa inoo soo eegay. wasiirku waxa ugu horeyn uu ka waramay ahmiyadda ballaaran ee diiniga ah ee uu ku fadhiyo masaajidkaasi maanta dhagaxii ugu horeeyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhigay. wasiirku waxa uu sheegay in masaajidkan oo loogu magac daray caasimadda qatar ee Dooxa uu ka qayb qaadan doono kor u qaadida dhaqanka suuban ee diinta islaamka iyo barashadiisa intaba ee dhalinyarada dalka. waxa uu sumcad iyo qiimo gaar ah uu ku soo kordhinayaa gobolka oo dhan kaasi oo kaalin wanaagsan ka galaya baahinta akhlaaqda wanaagsan ee diinta islaamka. wasiirku waxa uu ka mahadceliyay joogitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ee munaasabadaasi dhagaxii ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhigay, waxaana ay qayb ka tahay dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan dhismaha bulshada iyo weliba horowdhigga bulsho dhaqaale ee dalka. waa mid uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu gartay in ay tahay wax wanaagsan in la dardargeliyo kaalinta masaajidada iyo weliba baahinta dhaqanka wanaagsan ee diinteena xaniifka ee islaamka. wasiirku waxa uu sheegay in mashruuca dhismaha masaajidkani ay maalgelisay dowladda qatar oo tilmaamaya xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya labada dal iyo labada ummadood ee walaalka ah, waana astaan wanaagsan oo xoojinaysa iskaashiga u dhaxeeya labada wadan. wasiirku waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle isaga ahmiyad gaar ah ama ballaaran siiyo mar walba imaamyada iyo goobaha lagu cibaadeysto dhismayaashooda intaba. يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله على رعايته الكريمة لهذا الحفل الخاص بوضع حجر الأساس لمشروع مسجد الدوحة في جيبوتي. وأرحب ترحيبا حارا بمعالي الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له، ونشكرهم على هذه الزيارة الكريمة التي تعتبر تتويجا لعمل متواصل واتصالات مكثفة وتنسيق دائم بين وزارتينا حتى نشهد هذا اليوم السعيد الذي سوف ينطق فيه مشروع مسجد الدوحة، دوحة الخير والعطاء، وهو بكل تأكيد سوف يبقى علامة بارزة وشاهدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. أيها الجمع الكريم، إن تشييد هذا المسجد الكبير في هذا الحي الذي يشهد عملية بناء وتطوير واسعة سوف يكون منارة من منارات العلم والانفتاح، وسوف يساهم في تعزيز دور المسجد باعتباره بيتا من بيوت الله ومكانا للذكر والعبادة ونشر أخلاق التسامح والتكافل بين المسلمين. إن تحقيق هذا الإنجاز في عهد فخامة الرئيس الجمهورية حفظه الله يضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في كافة المجالات التنموية والتي تهدف إلى استكمال عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وسوف يساهم مسجد الدوحة في تعزيز هوية الانتماء الحضاري للعالم العربي والإسلامي من خلال دوره كمركز من مراكز الإشعاع الروحي والثقافي. فنحن بحاجة إلى إحياء رسالة المسجد ليؤدي دوره المنوط به في نشر الرسالة الإسلام السمحة وقيمه الأخلاقية ومبادئه الاجتماعية التي تحث على الوئام والتسامح والانفتاح على الآخر. ويعتبر لنا فخرا فخامة الرئيس الجمهورية أنك قد شيدت المساجد وأعطيت الأئمة والمؤذنين حقوقهم، وتم توظيف أكثر من 400 إمام ومؤذن في هذا العام فقط. وما حضورك معنا في هذا اللقاء إلا دليلا على اهتمامكم البالغ في الإسلام وفي أهل الدين